gudoomiyaha ururka Mental Care Organization oo ah ururka daryeelka dadka qaba xanuunada dhimirka Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf ayaa kulan isxog waraysi ah ugu qabtay xafiiska magaalada Hargeysa gudoomiyayaasha gobolada kala duwan ee Soomaaliland ee ururka daryeelka dadka qaba xanuunada dhimirka Mental Care Organization. kulankani oo ahaa kulan isxog waraysi ah ayaa waxa ay kaga wada hadleen wixii u qabsoomay intii uu ururku jiray iyo qorshayaasha cusub ee ay qaban doonaan iyada oo ay inagu soo dhowdahay bisha barakaysan ee Ramadaan. ururkanina ay qorshayaashiisa ugu jirto sidii ay u caawin lahaayeen dadka qaba xanuunada dhimirka ee ku nool deegaanada kala duwan ee Soomaaliland. waxaanu gudoomiyaha ururka daryeelka dadka qaba xanuunada dhimirka Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf shaaciyay in 5 sano ee soo socota ay urur ahaan ku hanweyn yihiin in ay wax ka bedelaan xaaladda hadda ay ku sugan yihiin dadka qaba xanuunada dhimirka ee ku nool derbiyada iyo gidaarada cidlada ah ee ay dhaxantu ka dhacayso. إلهي بأمانه سبحانه وتعالى سوى كان كنا وكان إنه نسورة قليل إن الماء قبصنا شركة كواد قدومية شغالة Mental Care Organization أما أورك الطريقة ضد كقبحنا وكل كواد سواء كان مسؤولين تبدأ أورك يمسؤولين وصل رئيس قبلة أورك وشيتكو وحوي أنا شغل نوي صدق خلاص جرابة فرقضب أنا قبل ما لين إسكاب حب ورئيسنا بدأ يورو كتير وهذا نص بس سداد بلاد ودهان وحاو قبصامي يو وحو وحا كلاو قدام بيا وشفع قرشها أنا قلت لك الله بيش بركة سنة رمضان لهذا ما تعرف ما هو جارسيو إنه تذكاس بشاس maxay tahay waxtaan maadaama gabiyaha goobihi ama walaalaha ama macallinaha ama suuqa lahaada suuqa kale ku tirsanaa cuntada bisnitaan u xiran yahay marka naftoodurayaasha Mental Care Organization soo xil qaamanina iyagu joogto uritaan mas'uuliyadaas isla markaasna ay dadka gaarsiiyaan taageero de wax qoor oo ka bedeli doonta rabanaanadii hore ee soo maray iyo kuwii إن العفاي إن نقدم دونتو قبل هذا أول كش غيره أو يجوه بالعرض هاي عاصمته إنه وحسك بدل الدونا. ururkani oo ka kooban dhalinyaro dhigata dugsiyada kala duwan ee dalka Soomaaliland ayaa u tafaxaytay sidii ay u caawin lahaayeen dadka qaba xanuunada dhibirka mar walbana la garab taagan yihiin wixii taageero ah ee awoodooda ah waxaanay ummadda samafalka jecel ee afka Soomaaliga ku hadasha ugu baaqeen in wixii dadka ay ku soo caawin karaan soo caawiyaan. waa Mustafa Ahmed Samakaab, wararka Star TV magaalada Hargeysa.